ما حينوتها إيمانتا مالين الحمد لله وين معايا لي وحنا لفرديه سفيركي دولة تركيا هالكان ومثل الدولة دي تركيا وأنو تشعلين رون أهانتين مالين عن آد وباهنين ملنا وصبح ذي waxaan leenahay anigoo ku hadlaya ururka caafimaadka ee Denmark SSF ku soo dhawow halkan dadka Soomaaliyeed oo run ahaantii ummadda Turkiga hambalniyad gaar ah u haya jecelna ogna maalintii walaalkaaga markuu aad baahan tahay ku caawiyay waa kaaga duwan yahay walaalka marka aadan baahnayn ku caawiya marka kulligeen waa wada xusuusanaa waxaan markaas aad iyo aad u leenahay soo dhawow aqbalaadii aad naga aqbashay inaad noo timaadana aad baan ugu faraxsanahay waxaanan rajaynaynaa insha Allah wado cusub oo kale inay furi doonto oo ah isku xirka ummadda Soomaalida iyo ummadda walaalaheena ee Turkiga barnaamijku waa sii soconaya laakiin meesha waxaan u soo istaagay inaan ku soo dhaweeyo laakiin dad kale ayaa iga dambeeyo oo hadli doona qaarkood ururka SSF iyo waxa uu yahay bay ka hadli doonaan gabar kamid ah qaarna waxa ay ka hadli doonaan ummadda Soomaaliyeed iyo miisaalkeeda ummadda Soomaalida ay ka hadli doonaan intaas waxa noo sii dheer markaas safiirka ayaa ku soo dhaweyn doona barnaamijka oo la socota ma rajaynahay waxaan leeyahay mar kale His Excellency Dr. Mehmet soo dhawow adiga iyo professor kula socda. To give the floor, His Excellency Mohammed, welcome. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Yes, I will translate. Yeah. Just read, I will translate. At the beginning of my words, I would like to extend my heartfelt thanks Marka ugu horeysa aad inaan idinku mahadiyo ayaan doonayaa to all speakers and Mr. Chairman intii meesha ka hadashay oo dhan iyo for Chairman-kaba. the very warm words erayo kulul oo macaan oo qiimo badan ayaa meesha laga sheegay to my government, to my nation, and to my humble myself. dawladayda iyo dalkayga iyo anigaba si qurux badan ayaa naloo amaanay Dear sisters and brothers, Walaalayaal. distinguished guests, iyo martida oo dhanba my relation with your nation and your colleagues goes back to my years in Yemen, Sana'a. xiriirka aan la leeyahay dalkiina iyo dadkiinu waxay ka soo bilowdeen aniga oo joogi jiray dalka Yemen magaalada Sanaa My previous posting was ambassador of Turkey in Yemen from 2009 to 2011. 2009 ilaa 2011 ayaan waxaan safiirka Turkiga u ahaa safiirka u fadhiya dalka Yemen magaalada Sanaa Where I became more familiar with the knowledge of the Somalian people and their suffering. halkaabay ahayd halkii aan ku bartay khibradana aan ugu yeeshay dadka Soomaalida ah iyo dhibaatada haysataba And Somalian ambassador and diplomats were my close colleagues. safiirada iyo diblomaasiyiinta Soomaaliyeed ee jooga dalka Sanaa waxay ahaayeen dadka igu dhow oo aan wada shaqayn jirnay yani iskaashan jirnay And I had the opportunity to welcome various delegations from Mogadishu to Yemen. delegations badan ama se maxaa la yiraahdaa socdaalo dad badan oo ka yimid Soomaaliya ayaan ku soo dhaweeyay magaalada Sanaa intii aan joogay And afterwards, in my
last home posting, I was representative in Istanbul, kadibna waxaan dib u galay magaalada Istanbul where I had the opportunity to welcome your president, your ministers, and various high-level guests from Somalia to Turkey. halkaasoo ay igu suurtooday inaan kusoo dhaweeyo madaxweynaheena iyo wasiirro badan iyo dad badan oo ahaa ma garanaysaa wafdiyo Soomaaliyeed oo yimid halka inaan kusoo dhaweeyo ayaa ii suurta gashay iyana. And most recently, I participated last year's Somalian conference here in Copenhagen, organized by Danish government. waxaa ugu dambeeyay shirkii halkan lagu qabtay ee Soomaaliya ku saabsanaa ee magaalada Copenhagen lagu qabtay kaana waan ka qayb galay. I would like to thank the organizers of this useful event waxaan aad iyo aad u doonayaa inaan ku mahadiyo kooxdiina abaabushay shirkan for inviting me to make a speech. iguna casuuntay in aan hadal hortiina maanta ka soo jeediyo. It's an honor for me to be here representing my country and having this chance to give you some information about Turkey's efforts in Somalia. sharaf weyn ayay ii tahay inaan maanta hortiina soo istaago ana ka warbixiyo idinka ogeysiiyo dalkayga iyo dawladdeedu waxa ay ka hayso shaqo dalka Soomaaliya. As you know very well, Turkey is the leading donor in Somalia, and we will continue to do our part in the process of reconstruction of Somalia. sida aad ogtihiin Turkiya waxa weeye line-ka hore ayay ku jirtaa caawimaadda gacanta loo fidin hayo Soomaaliya waxaanu wadi doonaa sidaas inaanu line-ka ugu horeeyo mar walba ku jirno dib u dhiska dalka Soomaaliya. Because we believe Somalia and Somalia people deserve our continuous attention and support. maxaa wacay waxaanu aaminsanahay dadka Soomaalida ah inay u baahan yihiin gacantayada iyo garab istaagayaga iyo support inaanu siino. President Erdogan's visit to Mogadishu last January was the confirmation of our continued support to Somalia and our determination to develop our bilateral relations. booqashadii uu ku tagay madaxweyne Erdogan magaalada Muqdisho sanadkii bishii January waxay ka markhaati furaysaa ay cadaynaysaa sida ay nooga go'an tahay in aanu Soomaaliya gargaarno gacan siino mar walbana aanu wadno sidii aanu Soomaaliya gacan uga geysan lahayd dib u dhiskeeda. Turkey's policy comprises a strategy in the fields of political reconciliation, political reform, economic development, humanitarian assistance, security and public diplomacy to contribute to the normalization process in Somalia. waxay dawladda Turkey dawladeedu waxa siyaasadeedu ay ku salaysan tahay in ay ka qayb qaadato xagga dib u dhiska iyo dib u habeynta siyaasadeed kan dhaqaale kan maaragtay waxbarasho oo dib u dhis kan heshiisiinta dib u heshiisiinta dalka inta oo dhan iyo intii aan ka ilaaway hadal badan buu sii daayay ayay dawladda Turkigu diyaar u tahay in ay ka gacan geysato oo ay ka qayb qaadato. Our total humanitarian and development aid to Somalia has amounted to around $400 million so far. hadda waqtigan xaadirka ah mucaawanada aanu Soomaaliya siino dawladda Turkiga ay siisay shacabka Turkiga uu siiyay wuxuu gaarayaa $480 milyan. Turkish Airlines has been operating between Mogadishu and Istanbul since March 2012. bishii March 2012 laga soo bilaabo diyaaradaha Turkish Airlines waxay si toos ah ugu kala duulayeen Muqdisho iyo Istanbul. Today, Turkish Airlines is the only global network connecting Somalia to the world with daily flights. maantay Turkish Airlines waxa weeye sharikada diyaaradaha adduunka oo qura oo dunida oo isku xidha Soomaaliya iyo adduunka maalin walbana ka duusha Muqdisho. In the area of reconstruction of infrastructure and development assistance, Turkey has embarked on comprehensive work. In this regard, Turkiya marka la eego xagga dib u dhiska waxay qaaday tilaabo cad oo ay kaga qayb qaadanayso si hubban oo hufan dib u dhiska dalka Soomaaliya. provided garbage trucks, waxay u keentay gawaarida qashinka ka aruuriya magaalada nadaafadeeda ka qayb qaata. established an installation in which to burn garbage, qashinka meel lagu gubo si aanay magaalada iyo dalku cimiladu u halaabin ayay samaysay Turkey. renovated the airport including the airport towers, the lighting, etc. airportka Muqdisho gebi ahaanba dib u dhistay oo airport cusub ayay dhisay dekada diyaaradaha.
built hospitals, schools, bakeries, cold storage, mobile kitchens, orphanages, waxay dhistay iskuullo, cisbitaallo, xataa jiko soconaysa oo mobile baabuur madbax leh oo soconaya. waxay dhiseen meelaha caafimaadka iyo wax la mid ah. opened vocational schools, iskuulo waxay furtay vocational school iskuulada waxa weeyaan laga barto farsamada. and dug wells for the water. ceelal biyo sida ogtiin dalkeenu waa oomane marka ceelalna way ka qodeen dowladda Turkiga wadankeena. Turkish government has rehabilitated main roads of Mogadishu in total comprising of 30 kilometers. 30 kilomitir oo wadooyin ah ayay dowladda Turkiga waxay dib u habeyn kaga samaysay magaalada Muqdisho si magaalada socodkeedu u fududaado. The project involves rehabilitation of roads, tarmac paving, wastewater canals, and setting up of solar street lights along the roads. waxaa intaa oo dham ay ka kooban yihiin wadadii oo laami laga dhigay, wadadii oo loo sameeyay meelo biyuhu ay galaan markii roobku doo biyaha si ayna wadada u fariisanin meel lagu shubo. waxay u sameeyeen nalal solar ah oo qorraxda ka ifinaya magaalada habeenkii. The Recep Tayyip Erdogan Hospital in Mogadishu is one of the biggest and most modern hospitals in the region. Cusbitaalka magaalada Muqdisho laga dhisay oo Turkiga ay ka dhistay waxa weeyaan cusbitaalka ugu casrisan regionka ama qaybtan East Africa. The hospital will serve Somali people in addition to providing state-of-the-art training facilities for the medical sector. kasokow daaweynta la tacaalka dadka Soomaaliyeed cusbitaalka uu qabanayo waxa kaleeto oo cusbitaalku qabtaa waxbarasho nooca ugu casrisan ah inuu u fidiyo dhalinyarada Soomaaliyeed wax ku baranaysa xagga medicine. Turkey will operate the hospital together with local medical staff for Turkey- 5 years. 5 sano ayay Turkiga gacanta ku hayn doontaa cusbitaalkaas iyada oo kaashanaysa dhakhaatiir iyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo ay ka wada shaqeeyaan oo iska kaashadaan ka shaqaysiinta cusbitaalka. Before handing it over to the Somali government. 5 sano ka bacdina waxa weeye waqtiga loogu talagalay in ay Turkiga ku wareejiso cusbitaalka dowladda Soomaaliya. Furthermore, a nursing school has been constructed next to the hospital. cusbitaalka annex ayaa loo sameeyay ku dhagan oo wax lagu baro nurses gabdhaha kalkaaliyayaasha dhakhaatiirta. Turkish NGOs are also building and operating 2 other hospitals, Yardımeli and Doctors Worldwide. laba cusbitaal oo kaleeto ayaa waxa operational ka dhigay ama se ka shaqeeyo oo gacanta ku hayo oo wada organizationno mucaawanada dadka humanitarian. The total inpatient capacity in Mogadishu will be increased by 350 beds by the time Turkish funded hospitals are fully operated. cusbitaalada Turkiga ay ka dhistay Muqdisho marka ay dhamaadaan oo giddigood gacanta laga qaado waxay soo dhaweyn doonaan 350 sariirood oo chief ah ayay yeelanayaan. Outside of Mogadishu, Turkish medical aid is comprised of hospital renovations, refurbishment and medicine support in Berbera, Galkayo, Beledweyne. Berbera, Gaalkacyo iyo Beledweyne. Berbera, Gaalkacyo iyo Beledweyne markii laga baxo Muqdisho ayay sidaas oo kaleeto Turkiga waxay ka wadaan arrinta caafimaadka cusbitaalada. In the coming period, we will extend our support to the regional administrations. waxaanu marka muddada soo socotana aanu gaari doonaa oo gaarsiin doonaa oo balaanka noogu jira in aanu gobolada kaleeto ee Soomaaliyana gaarsiino gargaarka nooca. We have also been actively involved in the field of education and capacity building. si loo tayada loo kordhiyo dadka dalka maamulka tayadiisa iyo waxbarashada kuwaana gacan weyn ayaanu ka geysanaa oo aanu ku jirnaa. We have been training and educating future Somali leaders, experts and professionals through scholarships and internships. waxaanu siinaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo loo diyaarinhayo in ay noqdaan dadkii dalka maamuli lahaa madaxdii dalka ayaanu diyaarinaa. waxaanu siinaa waxbarasho scholarshipka nooca loo yaqaano si lagu dhiso aqoontooda iyo capacity-gooda. Somalia's young population should have a future perspective in their own country.
dhalinyarada Soomaaliyeedba waxay u baahan yihiin in ay helaan mustaqbal ku dhisan dalkooda. In this respect, at the moment we are hosting almost 3,000 young Somalis in Turkey studying and gaining new skills. qiyaastii 3,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed ayaanu iminka wax ku barnaa Turkey si aanu ugu diyaarno in ay iyagu hawshoodii dalkooda wax u qabtaan. We believe that when they are back at home, they will contribute substantially to the rebuilding of their country. waxaanu rumaysanahay 3,000 ee dhalinyarada ah markay wax soo bartaan dalkooda ku soo laabtaan in ay noqon doonaan kuwo dalkooda iyo dadkooda wax u qabta oo dhisa. On that note, I would like to congratulate the SSF for its efforts for contributing to the health sector in Somalia and supporting Somali people here in Denmark and in Somalia. waxaan sidoo kaleeto waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay soo dhaweynayaa mudanna in la faaniyo mudan shaqada xooggan ee ay hayaan ururkan dhalinyarada ee SSF oo ay u hayaan dhanka caafimaadka dadka Soomaaliyeed ku noqon dalkan Denmark iyo waliba dalkii hooyo oo ay u aadaan inay caawimaan. Problems can be dealt with only with determination and working in unity regardless of differences between us. dhibaatooyinka iyo mashaakilka waxa xal u noqon karo lagu xalali karaa is-afgarasho dadaal dulqaadasho iyo wada shaqayn oo aynu isla garanno in aanu wax kasta eenu isku khilaafsanahay inta ilowno aanu gaarno xal. I'm sure we will overcome many issues working hand in hand, and Turkey is happy to be an important partner in the development of this friendly country. haddii gacmaha la isqabsado waxaan shaki igaga jirin in la gaari karo wax kasta oo mashaakil oo dhibaato oo jira in xal loo helo. Turkiyana way ka go'an tahay in ay gacmaha inta isqabsataan wax alla wixii dhibaato oo jira si wada jir ah loo wajaho. At the end of my words, I would like to express once again that I am very happy to see the determination and the close cooperation of the Somalian community here in Denmark, and I will be pleased and proud to report this fact to Ankara and Mogadishu that a bright future for Somalian people in Denmark is ahead of us. ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan idin sheego inaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sharaf weyn ay ii tahay maanta in aan halkan idinla joogo idinku imaado. waxaan ballan qaadayaa in aan gaarsiiyo sidan sharafta leh iyo determination go'aankeena muuqda ee sharafta leh inaan gaarsiiyo dalkayga Ankara Turkey aan gaarsiiyo Muqdisho una sheego halka kan in ay joogaan inuu ka iftiimayo mustaqbal wanaagsan inuu halkan ka iftiimayo dhalinyarada Soomaaliyeed. Thank you very much and God bless Somalia. waad mahadsantihiin Soomaaliya. mar koowaad iyo marka labaad ba Ilaahay baa mahad iska leh. waxaa intaas ku dari lahaa wixii meeshan ka dhacay run ahaantii dadkii hadlay dhammaantiin intiina ka soo qayb gashay aad iyo aad baad mahadsantihiin. safiirka waxaan leeyahay mar kale aad baad ugu mahadsantahay hadalkaaga qiimaha badnaa qiimo badan buuna noo leeyahay. waxaanan rajaynaynaa insha Allah inay gaari doonto madaxweynaha Erdogan. Your words are very especially valuable for us, and I hope that this venue and what we have talked about will reach to His Excellency the President of Turkey. waxaan kale oo ogahay inay jiraan dad walaalaheena oo dad shakhsi ahaan Soomaaliya u caawiya ama ururo samafal ah oo Soomaaliya ayaguna caawiya. laakiin intaas oo dhan waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaalaheena Turkiga oo ka soo qayb galay shirkan. We know that there are also individuals, Turkish brothers and sisters. There are institutions and organizations, humanitarian organizations, for instance, Time to Help, who are contributing a lot of good things to our people and to our country. And I want, on behalf of SSF and my community, to thank you also all. sida aad maqlayseen hadda annagu waad SSF waa tagnay Muqdisho iyo gobolada kaleba waanan soo aragnay indhahaygan ku aragnay Erdogan Hospital hadduu ahaan lahaa
iyo isbitaalada kale iyo iskuullada waxa hawsha ka socota si fiican baan usoo aragnay wax lagu farxana weeye waadna ku mahadsantihiin baan leenahay mar kale iyo mar saddexaad. Our team, our group from SSF, we have been at Mogadishu and we have seen the Erdogan hospital, we have seen the schools, and we have seen all the other projects going on there. And we are very, very glad and very happy, and thank you very much. Finally, ma doonayo waqtiga inaan ku dheereeyo safiirka iyo professorka iyo walaalaheena kala reer Turkiga oo yimid luqadda Turkigana xoogaa walahi yar baan ka aqaanaa laakiin I don't want to use all the time for a lengthy speech to thank to His Excellency the Ambassador, to our brothers Mehmet and Omar, and to all the others. But let me tell you that I know some few words in Turkish. Nasılsın? Nasılsın? Siz nasılsınız? Hayır. Waaba Turki dhalaho nugu dhex jira. Okay, aad iyo aad baa marka lagu mahadsan tahay. He's a Waxaan little Turk, rajaynaynaa wax Yes. yar ood ku xusuusato. Soccer. Soo fuladeed, abaqan ab. Xusuus yar ah. This is just to remember Meet Our- shirkan asaga ah. our modest thanks. Yeah. It's very kind of you. Turki way ku qoran tahay. Turki miyaan ku aqriyaa? It's written in Turkish. Shall I read in Yes. Turkish? Yes. Okay, try to read in Turkish. I know. No. I don't have the time. But he doesn't have the right glasses because the letters are too small. But I read and I understand. It's perfect. It's no perfect. no mistake at all. Perfect to you. Thank you very much. Fantastic. It's a very precious gift to me, very memorable, and I am again. I was very pleased to be together here with my sisters, brothers, for such a humanitarian and important event. And as you know very well, no need to say, but let me repeat again: Turkey will be always with you, and our support will continue to the end. waa hadiyad wanaagsan oo xasuus mudan aad baanan idinku mahadinayaa reer bahda SSF iyo idinka oo dhan waanan xasuusan doonaa oo waxaanu ilaawi karna maaha waxaan rabaa inaan idinka ballan qaado in gargaarka iyo walaaltinimada dalkayga iyo dadkaygu ay u hayaan Soomaaliya uu ahaan doono mid joogto ah oo aan isbedeli doonin. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Doctor.